كورن هدي أديكو حيبتا اللي دا تشيفا شراب لين معانا أفكو هاي معان سنينا هدي أي سوق اللي لهايد لعك $100 لا $100 ما ينعاد شيبهان لهين لابد كوني لا تنقي لابد كون استحلا تنقي ببلشد وحا آدو سو تشيتين passive income. The passive income. تاس أو توستي إن أي شران ودوين أد لعك وسمين كرتد سيكي دوين سيدي وايده هور لعك لغو سمين شرين وارن بافيد بوحو إلى هذا هدي أي سن شرين ودو أد لعك وسمين كرتد أديكو تشيفا waxaad shaqayn doontaa ilaa aad ka dhimatid run ahaantii waxa la yiraahdo passive income ma jiro balse laakiin waxa jira waxa la yiraahdo leverage income waxa weeyaan waa xalinta dhibaato ka jirta suuqa qofka oo isku daya inuu dhibaato xal u keeno taasoo suuquna ka abaan mariyo qofka xalkii uu keenay haddaba shantan inagu guda gelin waxaynu ka eegi doonaa kow خطر انتلج أيو ليه لبا جودي انتلج أيو كهجة باهية صدق لعك انتلج أيو كهجة باهية سيادو مالك شتو أفر مفروض ده إن اللعك هذا كهجة صنعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسر وهذا مانتا فدينا مانتا حنسكولي دونا شنو الدوين واللعك سمين كرتو سباسفة أدو جودي يرجلني هذا بشنتن وحنكو قيمة دونا كو إلا شن كو أو aad ayuu fudud tahay shan oo ah aad ayuu adag tahay digital product waxa weyn tusaale ahaan qofka oo e-book ama drop shipping ama course internet ku dhex iibinaya haddaba tusaale ahaan waxay dadku aad u yaqaanaan drop shipping kaasoo qofku uu isku dayo in product uu kaga dhex iibiyo internetka dad kale oo iyaguna u baahan productgaas tusaalaha labaad wuxuu noqon karaa haddii uu jiro xirfadaad aad u fiican tahay waxaad samayn kartaa video waad soo duubi kartaa adiga oo xirfadaadii soo bandhigaya una soo gudbinaya bulshada u baahan iyo suuqa looga baahan yahay haddaba runtii digital product uu aad buu ballaaran yahay balse laakiin intaa ma tusaale ahaan kusoo koobana khatarta uu leeyahay maxay noqon kartaa khatarta uu leeyahay waxay noqon kartaa adigu ma garanaysid waxaad soo bandhigayso ama product ama e-bookaas in laga iibsan doono iyo suuqa ku haboona in aad u raadisid ay u baahantay marka khatarta aad gelinaysaa waxa weyn kaliya waxaad u baahan tahay cidii ka iibsan lahayd miyay ka iibsanaysaa ha ama maya adigu oo gelinaya juhdi fara badan iyo dadaal fara badan marka waxaynu siinaa khatarta saddex ayaynu siinana waa ma taqaanid in laga iibsan doono juhdiga markaanu eegnana wuxuu kaaga baahan runtii juhdi waayo wuxuu kaaga baahan inaad video samaysid iska duubtid tusaale dropshipping waxa u baahan tahay inaad samaysatid website waxa u baahan tahay inaad promote gareysid bulshada aad soo gudbisid aad ogaatid productkan uu yahay product dadka anfacaya saas ayaynu waxaan ku siin karnaa afar lacag ahaan iyo dakhli ahaan lacag aad u fara badan kaagama baahna waa tusaalaha istiraada koorso soo duub waxay kaaga baahan tahay kaliya taleefankaaga inaad hor fadhiisatid oo kaaga duubto taleefankaaga waa wada haysataa waxa laga yaabaa inaad soo iibsatid maxaa la yiraahdaa lighting ama microphone soo iibsatid taasoo kaaga bixi karta $100 ilaa $200 marka qaybta dakhliga waxaan odhanaa wuxuu kaaga baahan lacag aad yar oo ah kow in lacagtii aad maal gashatay ay ku soo noqotaana runtii san hore u sheegno waxa u yar baahan tahay khibrad iyo xirfadii aad soo bandhigaysa inay tahay tii dadku ku habboonayd marka waxaa suurtagal waxay ku xidhan tahay baan leenahay khibradda taasna waxaan ku siinanaa saddex ayaynu ku siinanaa fursadda labaad ee ugu saameynta badan ilaa waqtigan aynu joogno oo soo saarta dhalinyaro fara badan inay noqdaan millionaires waxa weeyaan cryptocurrency waxay ka mid tahay finance industry taasoo soo saarta billionaires ugu faraha badan leh ee adduunkan aynu ku noolnahay cryptocurrency runtii dhalinyarta faraha badan waxay maal gashadeen sida tusaale ahaan Ethereum Bitcoin iyo coins kala duwan kuwaas oo cryptocurrency ka mid ah cryptocurrency run ahaantii waa suuq aad u kacsan kaasoo mataqaana qof walba u sahlaysa inuu suuqa dhaqaajin karo BlackRock ayaa waxa loo ogolaaday inay Bitcoin ETF ay soo bandhigto taasna waxay sii gelin kartaa khatarta ay yeelan karto suuqan ama khatarta u yeelan karo suuqani inuu dhaqaaqo lacagtaad maal gashatayna ay noqon karto tu risk ama khatar gelinaysa saadarteed waxaan ku siinanaa khatarta number 5 ayaynu siinaa juhdi ahaan runtii kaagma baahna juhdi wuxuu kaaga baahan kaliya inaad button kaliya taabatid ayuu kaaga baahanaysaa waxaan ku siinanaa hal ayaynu ku siinanaa lacag ahaan runtii waxaad maal gashantaa kolba waxaad haysatid $5 $10 $20 aynu raadna markaa waxa weeyaan number 1 oo ah lacagta ugu yar ayaad maal gashan kartaa markaynu eegno lacagtaad maal gashatayna in ay ku soo noqon kartana runtii way fududahay balse laakiin inaad weydaana way fududahay sadarteed waxaanu ku siinanaa saddex ayaynu ku siinaa waayo lama hubo 50-50 ayaynu nahay fursaddan saddexaad runtii aad ay bulshadeen dhexdeeda caan uga tahay dadka hantida leh iyo bangiyaduna runtii aad ay u maalgashadaan waa real estate uma baahan runtii sharaxaad real estate-ku wuxuu ka caawin karaa lacagtaadu in ay ka saameyso sida inflationka ama sicir bararka halkii aad degan lahayd bangiga ama taqaana shamca hoosteeda ba waxaad awoodaa inaad maal gashatid
sida real estate-ka taasoo ku siin karta iyada lafteedu passive income. Real estate-ka nimca rabbi oo kugu dhacda mooyaane runtii aad ay u adag tahay iyo sidoo kale runtii waxaad dhisanayso ama taqaana guriga aad dhisaysaa qaabka loo dhisay iyo materialka lagu dhisayo haddaadan runtii si fiican uga fiirsan runteedu iyaduna waxay ku siin kartaa khatar ah in gurigaagu noqdo mid anfac yeelan waaye ama waqti yar jira kaasoo mataqaana haddii ay nimco rabbi timaado haddii ay daadi u yimaado hadduu yimaado dhul gariir ay mataqaana gurigaagu halkaa ku burburan. marka risk runtii wuu leeyahay isaga laftarkiisu iyo sidoo kale lacagtaada meeshaad gelinaysaa inaad aada uga fiirsataan waa u baahan tahay. marka real estate-ka khatarta uu yeelan karaa waxaynu siin doonaa 3 ayaynu siin doonaa. marka aynu eegno juudiga ay kaaga baahan tahay real estate-kuna runtii wuxuu kaaga baahan yahay horta marka koobaad juudi ayuu kaaga baahan yahay balse marka dambe ba waxaad awoodi karaysaa haddii ay tahay maamulista real estate-kaaga ama gurigaagii aad mataqaana adigu aad dhistay wuxuu awoodaa inaad qof u dhiibtid oo tiraad ii maamula ama shirkad baad u dhiiban kartaa oo tiraad ii maamula. marka juudi dabcan uu kaaga baahan yahay marka koobaad saa darteed waxaynu ku siinanaa laakiin inkastoosan kaaga baahan juudi dambe ba waxaynu awoodnaa inaynu ku siino 2 ayaynu siinanaa qaybta juudiga anuu eegaya sida aynu aaminsanahay real estate-ku dakhli ahaan runtii wuxuu kaaga baahan yahay in dhaxaysa 40 ilaa 70 kun adoo eegaya guriga qaabkaad u dhisaysid iyo qolalka aad ka dhisaysid iyo runtii sidoo kale meesha aad ka dhisaysidba waxaynu eegnaa marka 40 kun ilaa 50 kun dadka badankooda runtii maba haystaan taasoo ka dhigaysa dakhli ahaan inay aan ka dhigno 5 oo ah wuxuu kaaga baahan yahay dakhli badan ayaan isleena laakiin wadooyin kale ayaa jira oo dakhliga ku heli kartid marka maalin kale aynu ka hadli karnaa. anagoo eegana haddaba dakhliga aad maal gashatay intee in leeg bay qaadanaysaa in lacagtaada kuu soo noqoto. tusaale ahaan kaba soo qaad waxaad maal gashatay guri ah 50 kun 50 kun baa waxaad ka dhistay 5 qol ama 4 qol waxaanad ku kiraysay tusaale ahaan 300 bil walba bishaasi waxay noqonaysaa markaa lagu dhufto 12 ba waxay ku noqon kartaa 3600 haddaan qaldanayn 3600 haddaba intee in leeg bay qaadanaysaa in lacagtaada kuu soo noqoto qiyaas ahaan 10 sano ilaa 12 sano taasoo ka dhigaysa bulshadeenu inaysan sugi karin 10 sano ilaa 12 sano. marka waxaan leenahay lacagtaadu inay kuu soo noqoto waxay qaadanaysaa runtii waqti aad u fara badan. marka taa waxaynu ku siinanaa 5. ma aragtaa mararka qaar Soomaali caano oo haysiinaysa waxyaalo aysan iyagu lahayn tusaale ahaan caano aysan iyagu lahayn meherado restaurants ama tusaale ahaan bank ay haysiineen oo iyaga laftarkoodu aysan lahayn ma isweydiisaa sababta ay u haysiiyaan. haddaba business noocaas waxaa la yiraahdaa affiliate marketing ama shayga ay haysiinayaan ay ka helaan khidmad ama percent iyaga oo mataqaana code bulshada ku xiran iyaga ay mataqaana la wadaagaan bulshadaasina ay sii iibsadaan shayga ama ay isticmaalaan qof walba u iibsadaana ay ka sii helaan iyagu khidmad dadka caanka ee Soomaaliyeed. markaynu eegno juhdiga uu kaaga baahan yahay affiliate marketing runtii wax badan maaha waa hal mar u haysiisid oo laga duubo video ama aad isticmaashid linkiga YouTube-kaaga ama website-ka aad u leedahay ama aad qof u sii sheegtidba kaliya hal mar baa laga yaabaa juhdigaas in uu ka galo balse laakiin magacaaga iyo sharaftaada runtii ayaad mataqaan adiga laftaadu aad gelinaysaa meeshan waa inaad ka fiirsataa marka waxa aad dadka leedahay qaata ama iibsada inuu anfac u leeyahay bulshada. khatarta haddaynu u nimaadnana khatarta horeynu soo sheegnay kaliya waxay ku xiran tahay waxa dadka ka iibinaysaa kaliya ma u leeyahay anfac taa marka waxaa khatar gelinaysaa magacaaga iyo sharaftaada haddii uu noqdo dadka waxaad ka iibinaysaa wax aan anfac lahayn bulshada inaad usoo gudbisaa wax fiican adoo isticmaalay magacaaga runtii aad bay u fiican tahay khatartaana waad leedahay sababta darteed waxaynu sameynaynaa 2 ayaynu siinanaa khatarta ay leedahay. aynu eegno qaybta dakhliga ma kaaga baahan affiliate market runtii waxba kaagama baahna kaliya wuxuu u baahan yahay inaad tahay runtii caan. 4 oo ah lacagtaad maal gashatay ma kaaga soo noqon kartaa markii hore lacag maad gashan markaa faa'iido mooyaane khasaaro ma lihid. kow ayaynu siinanaa fursada ugu dambeysa ee aad ku samayn karto lacag si passively waxay noqon kartaa shareholder runtii waddankeennii aad ugama warqabaan fursaduna runaantii aad ay ugu yaryihiin. tusaale ahaan haddii aan ku siiyo waxaad ogaatay ama qof baa wuxuu kugu yidhi waxaan doonaya inaan shirkad asaaso shirkadii ayuu ku marka wuxuu ku soo bandhigay in aad lacag ku biirsatay shirkadda si ay u dhisanto marka ay faa'iido ay soo saarto sanadka ka bacdina baa waxa lagu siinayaa saamigii aad ku lahayd shirkadaasi. waxaa la yiraahdaa shareholder waa qayb kamid ah dadka ugu dad yar ayaa runtii ka faa'iideysa fursadan waddankeena aad ay u gaartay. haddii aynu tusaalaha labaad wuxuu noqon karaa Warren Buffett baa wuxuu ku leeyahay saami Coca-Cola ama shirkadda Coca-Cola ninka maamula ama ninka CEO-ga Coca-Cola
hantidii ka soo gashay ama dakhligii ka soo galay sanadkii dhaweeyay waxa ka lacag badnaa lacagtii ka soo gashay Warren Buffett salahan wadankii waxa filayaa inay bixiso Somtel iyo shirkadaha ama bangiyadu ay bixiyaan marka fursad runtii waad raadin kartaa adiga laftaadu laakiin aynu eegno khatarta ay leedahay khatar runtii waxa yeelan kartaa waxa aad adigu markii koobaad lacagta aad bixisay si ay shirkadaas u dhisanto ba waxay noqon kartaa runtii inay shaqeyn weydo saamigii ku soo gali lahaa ama faa'iidada ku soo gali lahaa inay halka ku khasaarto waxaanu siinayna marka saddex ayaynu siinayna waxa kaaga baahantay information far badan ay kaaga baahantay juudiguna runtii wuxuu noqonayaa un kaliya in aqoontaada aad soo ogaatid waxa doonaysa inaad ka noqotid equity aad ku dhex yeelatid ama aad saami ku yeelatid shaygaas inaad ogaatid aqoonta sidoo kale faa'iidada ay mustaqbalka u leedahay bulshada kulli ay u shaqeyn doonto taas oo aynu siinayna marka juudigana saddex ayaynu siin doonaa ta kale waxay noqonaysaa lacag intellig ay kaaga baahantay runtii waxa aan filayaa Somtel waxay bixisay 2019kii saami ay ku bixinaysay markii aan daawaday ba wuxuu ugu yaraa wuxuu ahaa saamiga ay bixinaysay $100 ayaad marka macnaheedu waxay tahay lacag ay dadka badankooda awoodi karayaan ay noqonaysaa marka waxaan ku siinaynaa hal ayaynu siin karnaa inkastoo ay ku xiran tahay waxa aad doonaysid inaad aad ku biirsatid waxa uu noqon karayo lafteeda ayaa isku dayay mar inaan ani lafteedu saami ku yeesho bankigaas marka waxa ugu yar aad mataqaanaa maal gashan kartaa wuxuu noqon karaa $500 marka waxaan weydiiyay analyze-ka maxaad rajaynaysaa muxuu yahay filashada aad filanaysaan imsa percentage si aan bal ogaado ama aan hab fikir aan uga haysto waxay yiraahdeen ma qiyaasi karno ama wax information imasin takan waxaan doonay inaan ogaado inta in leeg bay qaadanaysaa faa'iidada si aan u ogaado aniga lafteeda lacagta doonay aan ku biirsado inta ay igu soo noqon karto waxay yiraahdeen taasna waa in laga fariistaa oo shir laga mataqaana laga sameeyaa si loo ogaado mataqaana waqtiga la bixin marka taasna ma yacad laakiin bangiyada jira ama waqtigan mataqaana iyaga laftoodu aad u dhisan waxay ku siin karayaan sanad ilaa 2 sano ilaa 3 sano san aniga lafteedu ka warqabo marka waxaanu eegi karnaa waxa u baahan tahay 2 ilaa 3 sano taasoo aan isleeyahay iyada lafteedu waa waqti maadaama aad maal gashanaysid ama aad shareholder ku noqonaysid shirkada ama bank marka waxaan odhanaynaa waxaan ku deynaynaa iyada lafteeda laba ayaynu shanta wad waxaan shan kamid oo lacag uga sameyn kartid adigoo juudi yar gelinaya bil walba hadaba talada ugu weyn ku siinay waxay tahay isku day inaad hal shay muhiimada aad saartid oo hadafkaaga ka dhigatid way bil aadamku aan maskax xun bileeyay laba shayna mooda focus ka mooda saari karno isku day marka inaad hal shay bilowdid taana mataqaana aad waqti gelisid haday tahay waqtigaaga haday tahay juudigaaga haday tahay lacagtaada si aad natiijo fiican aad uga dhalisid kulanka ku xiga intaan ku kulmi doono waxaan leeyahay maantiinba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh